saraakiishan ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan taliska 43aad kuwa danab iyo sidoo kale ciidamada daraawiishtu ay ka fuliyeen nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo qorshuhu ahaa in laga sifeeyo kooxaha nabadeedka degmada Jamaame oo xalay saqdi dhexe ee halkaas isaga baxeen kadib markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishtu ay ku dhawaadeen degmadaasi Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale ciidamada ayaa weerar ku qaaday dhinaca wadada dheer ee aada deegaanka Kamsuma ee waqooyiga magaalada Kismaayo halkaasna waxaa lagu soo waramayaa in dagaal xoogan uu ka dhacay ciidamada xoogga dalka ayaa dagaal culus waxa ay ku galeen deegaanka lagu magacaabo Bengeeni oo qiyaastii 5 kiiloomitir wax ka yar u jirta degmada Jamaame iyadoona markii dambe ciidamadu ay u suurto gashay in ay ku dhawaadaan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose gaashaan sare Maxamed Xasan Badal oo ah taliyaha guutada 11aad taliska 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xilli uu ku sugnaa deegaanka Sanguni waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida howlgalku u dhacay iyo ciidamada daraawiishta ee Jubbaland iyo dawladaha Mareykanka ciidankooda khaaska ah waxaan shalay bilownay howlgal aan ku sufeynayna cadawga Soomaaliyeed ee nolosha u diiday ee al-shabaab waxaan doosi soconaa Jamaame waxaan xalay baranay common cadawgii intaas aan socono nooma istaagan dagaal badan baan galay waxaanu ka dilay 15 al-shabaab dhaawacoodana 20 ayuu ahaa sida dadka xogta noo soo sheegeen anaga wax dhibaato ah ma gaarin ilaahay wuuna badbaadiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way ogyihiin in al-shabaab u istaagi karin al-shabaab wax ku soo haray hadda oo kaliya waa miina la dhigo iyo dhagar been la sameeyo inta ilaa shalay aan soconay howlgalka ku jirnay ilaa xalay wax cadow oo weyn oo hor istaagay ma inta dagaal waa galeynay way cararayeen waa galeynay ciidamada dadkaan ka qabanay waa haynaa dadaan ka qabanaynaa waan soo bandhigi doonaa laakiin meydkooda 20 buu ahaa uu badayahay qaar kalena way qaateen hadda waxaan inaga hadlayaa waa Bengeeni waxaana u sii dhownahay Jamaame hadda way ka baxeen 1 kiiloomitir baan u jirnaa ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in al-shabaab aan ka guuleysanay ka adkaanay waqti walba aan ka adagnahay insha Allah sanadkan ay noqon doonto sanadkii al-shabaab la baabin lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kale u sheegayaa cadawgan nolosha iyo noo diiday meel kasta oo joogno inaan iska qabano u midoowno aan baabino dawladda Soomaaliyana markasta waxay diyaar u tahay inay la dagaalanto cadawga diyaarna waa nahay anaga qaadan amaamirta madaxda naga sareysa waajibaadkaana waan fuulinay waqti dhowna waxaan jecelahay inaan gaarno Jamaame insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo bilow fiican bay noo tahay mar walba waan sameeynaa kow noomaha laba noomaha waana wadaynaa insha Allah bishan intaan dhamaaninaa jilib baan tagaynaa waan guuleysan doonaa insha Allah waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed noolaato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ha noolaado ciidanka dalka Soomaaliyeed xoogga dalka ha noolaado guuleysta cadawgana Ilaahay ha jabiyo mahadsantiin howlgalladan maalmihii u dambeysay ay wadeen ciidamada xoogga dalka ayaa qorshihiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa awoodda kooxaha nabadeedka ee weli ku harsan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyadoona qorshaha haatan howlgalka soconaya uu yahay in gacanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku dhigaan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.